gudoomiye ku-xigeenka hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland Faysal Jaamac Faysal Xawte ayaa magaalada Laascaanood ka furay kulan laga hadlayo qorshaha maamul daadejinta iyo kaydka raashinka ee dalka. Kulankan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee dawladda, ururada bulshada iyo mas'uuliyiinta jaamacadaha ee gobolka Sool. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Salmaan Diiriye waxaana hay'adda diyaargarowga aafooyinka uga mahad celiyay kulankan ay soo qaban qaabiyeen. واسكن نبعد فرابة كلا بحو هذا يجمع مركا وقت جدي أبيرت هذه من إننا كسب بيجمعنا إنه قبر وقابون هلا ويحلول كعنيه بس كي رأيه مركا هدوس تاع كسي ودنا دي وحنا ملانيا وفات يا علوس ونوجنا هيو دي بالكاسي دي عاد بلغوا رمي وحنسكب بورينا مركا وحكست أو إنه كوكينا يدي بعطو مديجان كنا كوكينا يو فداسي أي قصة سام هوستي مادو إنه عاد يا تقفوا عنه وعيجلين كسمينه isku boorino ka taxadaro inta la doonayo inta weeye qoladan soconaysa haatan inoo timina waxa weeye de wacyigelinta ay noola socdeen inaynu aad u dareeno oo aynu la socono yaa muhiimiyad weeye sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta Sharmaake Cabdi Muuse oo ku dheeraaday muhiimadda kulankaasi. innagana marka waxay noo dheer duruufo gaar ah oo marka keenaya inaan u sii nuglaano isbedelada cimilada oo ay ka mid tahay inagoo ku tiirsan xoolo ku tiirsan ama deegaanka ku tiirsan inagoo awoodeena dhaqaale hooseyso inagoo aqoonteena hooseyso iyo inagoo ma garatay systemkeena iyo maxay tooleen ay awoodeena heer dawladeed iyo heer bulshada ay iska ma garatay runtii wax ka dhiman yihiin annagoo markaa ka duulayna in ma garatay runtii dalku yeesho Somaliland yeesho qorshe u diyaar garow ama qorshaha gurmadka marka waqtiyada afooyinka yimaado waxa aan run ahaantii aan halkan u soconaa haddii Ilaahay ka dhigo inaan idin la wadaagno qorshihii gurmadka heer qaran oo run ahaantii aad fulintiisa qayb weyn ka tihiin hadday tihiin isuduwayaasha laamaha dawladda iyo ururada bulshada iyo waliba jaamacadaha door weyn ay ka yihiin fulinta qorshaha marka heer qaran la diyaariyana waxa iyaduna sunaha dawladnimo ah in marka loo soo daadajiyo heer gobol si marka loogu shaqeeyo waxa kaliya aynu dawladda ka rabnaa kaliya inaanay noqon khayraad iyo horumar wixii la soo daadajin karo laakiin systemskii dawladnimo lagu shaqeynay ee qorshayaashu ku yihiinna in iyaga laftigooda la soo daadajiyana waa mid muhiim ah oo wada shaqeynta iyo israaca gobolada marka wax weeyaan muhiim u ah marka kula hawshan u socono waa in hawsha qorshaha daadajino inaad nala ogaataan bal qorshuhu yahay inaad fakri araa ku darsataan in hadduu biidankeeda leeyahay hodhowna aan fulintiisa aynu sida aynu uga wada shaqeyn lahayn waxa markaad wax ku ogtahay baad fulintiisana aad qayb ka noqon kartaa taasaan markaa u soconaa. ugu dambeynna waxaa kulankaasi soo xidhay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland Faysal Jaamac Hirsi. waxaanu maanta halka u nimi inaanu ka daafurno qorshaha gurmadka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo aanu maalmahanba hawshiisa ku jirnay. waxaanu soo marnay Burco Ceerigaabo maantana Laascaanood ayaynu ka daafuraynaa. muhiimadda iyo qorshahan hawsha laga leeyahay waxa weeye in qorshaha gurmadka qaranka ay bulshadu qaybaheeda kala duwani qayb ka noqoto ra'yigiirintiisa iyo fakarkooda marka dambena fulintiisa ay qayb ka noqdaan. waxaa jirta marka in laga hadlayo aafooyinku waa noocyo fara badan yihiin. bariyahan waxaa jirta isbeddelka cimilada oo qayb weyn ka ah aafooyinkan ku dhacaya geeska Afrika oo aynu dhul badan la wadaagno. waxaa jira waxyaabo aan hore u dhici jirin oo inaan bariyahan arag inkastoo gobolka Sool uu ku yaraa saan malaynayo duufaanto kale labadii sano ugu dambeeyay ilaa laba jeer bay duufaani dhacday oo ay xeebaha Somaliland sidaa darteed hawsha aan u soconaa waxa weeye qorshaha gurmadka qaranka in leedin la wadaago. waxa iyaduna kamid ah aafooyinka ugu culculus bariyahan dambe soo noqnoqonayay 2016 2017 abaarihii ka dhacay dalka abaarahaas oo dhaqaalaha waxyeelay waxay waxyeeleen
noloshii bini aadamka oo dhan marka la isku soo duuduubo bay waxyeello u geysanayaan waayo nolosha bini aadamku waxay ku tirsan tahay xoolihii waxay ku tirsan yihiin deegaanka dhaqaalihii baa ku tirsan marka noloshii bini aadamka oo dhan bay waxyeeshay arrimahaas oo dhan baynu rabnaa inaynu xog ururin ka samayno isaguna kolley warbixinihiisu gobolka sool haddii aanu xaggaa joognay oo hay-adaha caalamiga iyo wasaaradda beeraha iyo warbixinta gobolka sool xaggaa iyo xama badnayn iyo waxyeeladiisu inaad ku darsataan qorshaha oo aynu ku darsanno taasina waa muhiim hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka somalilan ayaa howlgallo kala duwan ka fulisay gobolka sool cabdiraxmaan cali ducaale sumnews t v laascanood